saraakiil ka tirsan Somaliland waxaa la xaqiijiyay iskaga soo bixin furmaha dagaalka ee gobolka Sool waa gobolkaasi Sanaag halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan maamulada Somaliland iyo Puntland. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si dhameystiraya. saddex taliye oo ka tirsan ciidamada Somaliland ee gobolka Sanaag oo ka soo jeeda bariga gobolkaasi ayaa sida la xaqiijiyay xalay ciidamadooda kala baxay Somaliland. taliyaashani oo kala Xuseen Faarax Aadan Xuseen Dheere, Guray Cusmaan Saalax iyo Xayle Xaaji Dirac ayaa sida la sheegayo ka carooday taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Ismaaciil Taani kadib markii uu amar uu ku siiyay in ay si wada jir ah u weeraraan degmada Baran ee gobolka Sanaag halkaasi oo ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan. sidoo kale taliyaasha ayaa diiday kadib markii General Taani uu ka dalbaday in ay wada tashi ay yimaadaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag si looga wada hadlo khilaafka labada dhinac ee ku saabsan si loo wajaho xiisada ka aloosan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. taliyaasha oo ka baxsaday Somaliland ayaa dhanka kale xalay waxa ay deegaanka Ceelbo kulan kula qaateen waxgaradka u dhashay bariga gobolka Sanaag iyaga oo ka kala yimid degmooyinka Baran, Laasqoray, Hadaaftimo, Xingaloole, Dhahar, Damal Xagare, Ceelbo iyo Carmale sida aanu ka soo xignay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Sanaag. taliska ciidamada Somaliland ayaanan dhankooda weli ka hadlin taliyaasha iyo ciidamadooda ka goostay iyaga oo gobolkaasi ay ka aloosan tahay xiisad u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland tan iyo markii ay ciidamada Somaliland ay qabsadeen degmada Yuube oo dhanka bari ka xigta magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag.